وإذ السلام عليكم أصحابتا maanta waxaan sameynayaa mandazi waxa igu jira meeshan bur wax yar oo sonkor ah xabad sooda iyo baking powder inta qalalan ayaan rabaa inaan soo qaso si fiican kulli qof walba intii qiyaastiisa aan koob iyo badh weeyaan iyo 2 qaado 3 qaado sonkor ah wax yar oo fixisa iyo wax yar oo baking powder iyo wax yar oo maxaan ku dhahdaa cusbo ah halkan waxaan ku darayaa 2 qaado saliid wax dhan hadaa rabto butter waa ku darsan kartaa subaga aad u fiican yahay udgoon buu leeyahay wax yar oo malabna waan ku darsaday malabku brown buu ka yara dhigaa sonkorta bas hadaan ku daayo brown ima noqdo marka wax yar oo caano iyo xabad ukun waan ku jibini waxaan ka dhigi jileec aadna uma jilciyo mana adkeeyo wax macquul ah in yar oo dhexdhexaad ah fiican ayaan ka dhigaa intuu ka adkaan lahaa burku haduu adkaado ma la jilcin karo marka waxaan jecelahay inuu iga adkaanin si haduu ma aragtay jileec noqdo bur yar baa ku dari waa adkeyn marka insha Allah hada si fiican ayaan u soo xashay waxaan rabaa inaan ka dhigo 4 qaybood markaan la waxayna aad khafiif kuma dhigay iska meel dhaxaad waan yara fidin mid kastaba 4 mid ayaan ka sii kala dhigi insha Allah waan shiili insha Allah sidoo ku soo baxo loo fiirinayna insha Allah aad mahadsantiin waxaan rajeynayaa inaad wuxuun ka faa'iideysato teeda kale asxaabta markaa ku dartay baking powder waxa weeyaan hada ayaa qasaysaa hada ayaa dubaysaa sidii la rabayna maasha Allah uu ku noqonayaa sababta uu kacaya asal ku soo baxaya laakiin leebitada markaan ku dar maanta dhan waa inuu soo noqdo daboolo anna waxaas ma jecli oo qalb la soo noqonay marka baking powder kan ku daraa meesha leebitada lagaga dari lahaa marka kulli qof walba tii u shaqeysa ayuu sameeyaa anitana ay dhaqso badan marka assalaamu calaykum